Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkeena Han iyo Man oo aad alaaba inagala socotaan. Please waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe noo saartiin channelkeena haddaadan hore noogu saarin. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay la wadaag asxaabtaada si ay u noqdaan ama ay uga mid noqdaan asxaabteena. aad ayaad u mahadsan tahay. maantana barnaamijkeena waxaan kusoo qaadan doonaa aktarada caanka ee dalkaasi Turkiya iyo walaalahooda. waxaana barnaamijkeena ku baran doonaa aktarada caanka ee dalkaasi Turkiya qaar ka mid ah iyo walaalahooda. waxaana kusoo qaadan doonaa 10 ka mid ah aktarada caanka ah ee aan misaladooda la socono. aad iyo aad ayaad mahadsantiin. kusoo dhawaada. atrishada ugu horeysa aan kusoo qaadanayna barnaamijkeena waa Burcu Biricik. waxaana la dhashay hal wiil waxaana lagu magacaabaa Biricik. sidoo kale waxaan soo qaadanaynaa atrishada caanka ah ee lagu magacaabo Asli Evir. waxaana la dhashay wiil iyo gabar waxaana lagu kala magacaabaa Akin iyo Anil. aktarka caanka ah ee lagu magacaabo Gökberk Demirci waxaa la dhashay hal wiil waxaana lagu magacaabaa Berkay Demirci. aktarka caanka ah ee Kadir Dogulu waxaa la dhashay 2 wiil iyo hal gabar waxaana lagu kala magacaabaa Kemal Azuman iyo Maxamed. Kakla Ertugrul waxaa la dhashay hal gabar waxaana lagu magacaabaa Pinar Ertugrul. sidoo kale waxaan ku soo qaadan doonaa aktarka caanka ah ee lagu magacaabo Maxamed Gunsur waxaana la dhashay hal gabar waxaana lagu magacaabaa Zainab Gunsur. waxaana kale barnaamijkeena aan ku soo qaadan doonaa atrishada caanka ah ee lagu magacaabo Nur Fitah Ugulu waxaana la dhalatay hal gabar. gabadhaasna waxaa lagu magacaabaa Selvinas Fitah Ugulu. aktarka caanka ah ee lagu magacaabo Burak Özçivik waxaa la dhalatay hal gabar waxaana lagu magacaabaa Burcun Deniz. sidoo kale waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena aktarka caanka ah ee waliba aniga aan si qaas ah u jeclahay sidoo uu wax u jilo Aras Bulut. waxaana la dhalatay hal wiil iyo gabar waxaana lagu kala magacaabaa Orjun iyo Yasmin. atrishada ugu dambeysa ee barnaamijkeena ku soo qaadanayna waxay noqon doontaa Melisa Asli Bamuk. waxayna leedahay hal walaal waxaana lagu magacaabaa Kan Bamuk.